السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dalka Masar cajaybta ahraamta Masar cidii dhastay saddexagalka buuraha shimitaysan ee Masar ujeedkii laga lahaa dhagxaantan malmalaasan iyo sidoo kale sababaha loo ilaaliyay ilmaha iyo hadda ku soo dhawaada macluumaad khaas ah oo aan ku eegayna maanta ahraamta kala duwan ee dalka Masar. waxaa la isla yaqaan in dalkan Masar yahay dunya hooyadii xadaaradda iyo aqoonta waxa uu caan ku yahay wadankan Masar inuu leeyahay aqoon-yahano soo saara cilmi iyo aqoon maangal ah cid walbaana ay ka faa'iido ilmaha haddana lagu ictiraamo in xataa saynisyahanada adduunka ugu waaweyn ay ka soo jeedaan dalkan Masar sida saynisyahanka weyn ee ictiraaqay cilmiga femtochemistry ee barashada samisyada unugyada dhiigga iyo kabashada ay soo kabtaan 120 cashaba hal mar iyo sidoo kale sida ay recovery u sameeyaan ninkaas oo lagu magacaabo Ahmed Sewaal waxa sidoo kale la yaqaansan yahay dalkan uu leeyahay saynisyahano kala duwan iyo aqoon-yahano kala duwan aan marnaba la dafiri karin. waxa la sheegaa sidoo kale inay kalendarkan 360 kan casho ee sanadka lagu cabiro iyo sida loo xisaabiyaba uu soo saaray nin saynisyahana kana soo jeeda dalkaasi Masar ilaa haddana lagu ictiraamo. haddaba inuu daadagno ujeedkeena ku aadan Great Pyramid of Giza saddexagalka buuraha shimitaysan iyo ahraamta kala duwan ee ku yaala dalkaasi Masar. ahraamtan waxay ka mid tahay toddobada mucjiso ee qadiimka ah ee laga aqoonsan yahay caalamka sida ku xusan kutubta iyo manhajada qadiimka ah ee dalka Masar waxay sheegaan in ay dhiseen ahraamta faraaciintii 4500 sano ka hor ilaa haddana ay sidoodii yihiin aan wax isbedel ku iman. waxaa la xusaa shaqaalihii ama raggii ka shaqeynayay goobtaas inay ka badnaayeen 10,000 oo nin una dhaxeeyeen ugu yaraan 10,000 ilaa 20,000 inta u dhaxaysa kuna qaadatay inay dhammaystiraan ahraamtan dhismahooda 20,000 oo sano. waxaa ku jira oo lagu dhisay celcelis ahaan 2.5 milyan oo dhagax mid kastana si gaar ah loo dhigay oo loo sarjaray xataa injineerada waagan jooga ayaa shaki geliyay in bini'aadam uu dhisay buurahan markay eegaan xajmiga dhagxaanta ay isticmaaleen dhererka dhismaha ay gaarsiiyeen iyo sidoo kale waqtiga inta leeg ay ku qaadatay oo ay adkeed waqtiga inuu jiro dad dalxiisayaal ah maadaama oo hadda dalxiisayaal oo kaliya wax faa'iido looga helo ay tahay iyo magac oo kaliya inay meeshan ku yaalaan buurahanu laakiin manfac badan oo sidaas ah aan waqtiga lahayn waan arrinka lala fajacsan yahay sababta ay u dhisanayeen buurahan malmalaasan iyo ujeedkii kala ahaayeen labadaba. qoraaga weyn ee lagu magacaabo Maxamed Samiir Mabruuk oo ah muwaadin reer Masar ah aadna loo ictiraamo buugtiisa kuna dhashay gudaha caasimadda Qaahire ee dalka Masar ayaa wuxuu ku xusay buuggiisa lagu magacaabo Al-Faraa'inatu Lis-Xadaara ahna buug si weyn looga ictiraamo gudaha dalka Masar kana hadla taariikhdoodii hore ee qadiimiga ahayd ee dadkii faraaciinta ahaa ayaa waxa uu xusay markii uu qorayay buuggiisa inuu sameeyay baxsi fara badan oo ku sameeyay Quraanka Kariimka iyo juqraafiga labadaba wuxuuna sheegay ahraamtan inay dhisteen qoomkii reer Caad ee loo soo diray Nabi Huud calayhi salaam. taariikhdiisuna waxay ku beegneed xilliga 2500 ilaa 2200 sano ka hor qoomkaas oo ah qoom aad u awood badan oo quwad weyn aadna ay ugu suurtoobay inay sidoo kale ay dhiseen dhismahan. walow ay badan tahay afkaaraha kala duwan ee isku liddiga laga qoray ahraamtan haddana intooda badan waxay ku salleedahay oo ku harooraysa ambiye iyo nebiyo kuwaas oo loo saadalinay inay dhismahoodan ay ka dambeeyeen ama qoomamkooda ay dhiseen. sidoo kale waxaa la sheegaa in ay dhisteen dad yuhuud ah ahraamtan laakiin maaha maqaalo sidaa u sii culus ama afkaaro sidaa u sii waaweyn laakiinse waxaa loogu saadaaliyay oo keliya maadaama ay dadka yuhuudda yihiin dad aad u caqli badan laguna tuhmo dad aad u maskax badan. fikirro kale ayaa odhanaya sidoo kalena aaminsan inaanu dhismayaashan dhisin dad caadiya ama bini'aadan ee uu dhisay jinkaas oo ah jinkii loo sakhiray Nabi Suleymaan. waxaana jira afkaaro odhanaya Nabi Suleymaan ma uusan ku bixin juhdi iyo dadaal intaa leeg dhismo aan wax manfac u lahayn ama dhagxaan iska malmalaasan maadaama uu ahaa nabi aqoon lana xataa jinkiisa uma adeegsadeen waxaan wax manfaca samaynaynin. sidoo kale hadal uu sheegay muftigii hore ee Masar ee Cali Jumayka ayaa muran badan ka dhaliyay kaasoo uu sheegay inay u badan tahay in Nabi Idriis uu gacantiisa ku bilaabay dhismaha ahraamtan isla markaana taalada Abul Hawl ay tahay mid nabiga loo dhisay taasoo muran iyo shaki badan ka oogtay dhammaan khalkhalisay afkaarihii hore looga qoray wixii hore u xusnaa ee ugu jiray buugaagta. arrinka ayuu ka sheegay barnaamij laga sii daayo telefishinka qaranka dawladda ee Masar oo lagu magacaabo laguna naanayso Masar waa dhulkii nebiyada. waxaanu yidhi dhismaha waxaa gacantiisa ku bilaabay Nabi Idriis calayhi salaam isagaana ahaa qofkii ugu horreeyay ahraamtan hindisa isla markaana bilaabay wejigan ku sawiran buurtuna
waa wejigiisa oo loo hindisay sidii taalladii oo kale. isagaana lagu xasuusanayaa oo wuxuu ahaa nebi idriis calayhi salaam buu leeyahay ninkii ugu horreeyey ee taalladan dhisay. isaga ayaana lagu xasuusanayaa, waana sababta wejigiisa loogu sawiray halkan. afkaarta si ugu caansan uguna macayinsan ayaa ah inay dhiseen faraaciintii hore ee Masar, waxaana jiri jirtay xataa inay dadka dhintay guri dhulka hoostiisa ay uga dhisi jireen lana aasi jireen wax kasta oo qofkaasi dambaabo. waxaana ay aaminsanaayeen inaan marnaba la kala reebi karin qofka iyo hantidiisa oo ay xaaraan tahay. arrinka ayaa laga dhadhaminayaa looguna suureeyey caqliyaddii faraaciintii hore. ahraamka dhismayaashan ugu dheer waxaa la dhahaa Khofo. wuxuu gaadhaa dhererkiisu 148 mitir, waxaana xajmigiisa lagu qiyaasaa culays dhan 5.9 milyan oo tan. waxaanu dhisan yahay muddo 3800 oo sano ah. halkii dhagaxna waxaa lagu qiyaasaa culayskiisa 40 ilaa 50 kilogram oo culays ah. wuxuu ku yaalaa deegaanka gobolka Jiisa ee dalka Masar, waxaana ahraamkan la dhisan oo ku dhagan lana mataanaysan labada ahraam ee kala ah Khafra iyo Manqaram. walow ay fara badan yihiin ahraamta ku taala dalka Masar, haddana saddexdana waa saddexda ugu caansan, sawirada iyo muuqaalada ugu badanna laga duubto. dalxiisayaashu inta ugu badani ay aad u yaqaanaan 6 ilaa 7 ahraamta ee dalka Masar ku yaalaana dhammaantood isku meel kuma wada yaalaan saddexdan mooyaane. waxaana ku kala yaalaan meelo kala duwan, waxaana kala leeyihiin midabo iyo muuqaalo kala duwan iyo samaysyo kala duwan. mid caarada u dhuuban, mid guduudan, mid baaska laxsan, nooc walba waa ay leeyihiin. qaar ayay u dhaxaysaa ilaa 30 kiiloomitir, qaar wax ka badan bay u dhaxeeya, qaarna sentimitir ayaa u dhaxeeya. waa saddexdan isku yaala, wax kastana waa ay leeyihiin. sidoo kale waxaa jira dhuumo ka samaysan jaranjarooyin oo dhex mara dhismayaasha haramka oo lagu gaadho gudaha hoose ee haramka, dadkuna ay sii raacaan, dhexdoodana in badan ay sii lugeeyaan oo aad u dhaadheer. ahraamtan ayaa leh muuqaal qariib ah ama strange ah oo aan cid hore u arag, dhigoodana aanay adduunka ku oolin. waana sababta keentay inay dalxiisayaasha ugu badan ay ku soo qulqulaan, maadaama ay rajaynayaan una yimaadaan halkan inay ka qoraan macluumaad kala duwan, aqoon fara badanna ay ka dhaxlaan, iyagaana raadadka ay ka tageen dadkii hore iyo faraaciintii hore ee loo saadaalinayay inay dhismayaashan ay sameeyeen. ilaa 1960kii ayaa waxaa ku socday dhismayaashan qaar ka mid ah dib u habayn iyo qurxin, waxaana la dhammaystiray muddo aan aad u fogeyn. dhismahan aad arkayso ee aad muddo sidii qofka oo kale ama kurka libaaxa leh waxay u sameeyeen sidii waraabowtaag oo kale, waana halka ay Soomaalida iska shabahaan. oo Soomaalidu waxay sameyn jirtay intay qori mara ku duubaan ayay xerada agteeda halka xooluhu ay ku xareysan yihiin ka taagi jireen, kadibna waxay u bixin jireen waraabowtaag. waraabuhu markuu arkana waa uu ka carari jiray, mana ay dhici jirin inuu soo dhaco xeradaas. waxaa la ogyahay in faraaciintii hore ay ahayd dad aqoon u saaxiiba, khaasatan cilmiga chemistry-ga ay aad cajiib ugu ahaayeen. waxaana la xusay in ahraamtan inteeda badan ay u adeegsan jireen dhoobo ay dhalaaliyeen oo ay umubixiyeen, kadibna ay u adeegsan jireen sidii dareerihii oo kale. marmarka qaarna ay dib ugu celin jireen halkeedii oo ay ka dhigi jireen dhagxaan. marka noocyo kala duwan ayay u adeegsan jireen, oo cilmigooda ayaa gaadhsiiyey iyo aqoonta chemistry-ga ay yaqaaneen inay marna dareero ka dhigtaan dhagxaantan, marna ay dhoobo ka dhigaan oo ay ku tilbiisaan sidii sawirkii oo kale. aad ayay u adagtay qofku isagoo dalka Masar yimi inaanu soo boqon goobahan cajiibka ah, waana meelaha ugu waaweyn ee lagu xasuusto dalka Masar. marka aad dalxiis iyo waxyaalo noocaas soo qaadana waa meelaha ugu horreeya ay dadku carrabaabaan ee ay dhahaan halkaasaan jeclaan lahaa inaanu tagno mar uun. anigana xataa waan jeclaan lahaa oo goobahan inaan soo arko, buurahan dhaadheer inaan koro, dhagxaantan cajiibka inaan soo arko waxa ay ka samaysan yihiin iyo sida loo dhigay, macluumaad badan aan ka soo dhaxlo, aad ayaanu jeclaan lahaa. waan rajaynayaa mar uun inaan tago. adigu se daawade ma jeclaan lahayd sidaas oo kale mar uun inaad Masar tagto, ahraamtan kala duwanna aad wax ka soo barato, soona aragto muuqahan sida ay u egyihiin. ilaa haddana waxaan meel la dhigin, layslana qaadanin sababtii loo dhisay ahraamtan, ciddii dhistay iyo ujeedkii laga lahaa labadaba. arrinka ugu weynse ee laysku waafaqsan yahay, dadka inta ugu badanna ay aaminsan tahay, ayaa ah inay faraaciintii hore dhistay. waana aniga laftigii ku aaminsanahay. adiguna fikirkaaga iyo ciddaad u aragtay inay dhistay nala wadaag. aad baad u mahadsan tahay. waxaan kaa codsanayaa intaanan bixin ka hor kanaalka inaad subscribe garayso, oo aan aaminsanahay inaad wax badan ka faa'iidi doonto. muuqaalka inaad like garayso sidoo dad badan u gaadho, sidoo kale inaad share garayso
oo aanad kala baqayn asxaabtaada.